السلام عليكم magacaygu waa Cabdilaahi Sheekh waxaan halkan ku soo gudbiyaa waxyaalaha caafimaadka ummadda Soomaaliyeed faa'iidada oo ah iyo waxyaalaha aynu u malaynayno inay marbaxad xilliga taagan yihiin ummaddeena Soomaaliyeed waxa dhibaatooyin badan ay ka haystaan inta dheefshiidka ama cuntada ay marto gaar ahaan waxa aad looga cawdaa naqas fara badan iyo calool olol iyo wax lamid ah calool ololka waxaan kaga soo hadalay fiidiyoyadan meelaha soo dhigi doono oo iyaga aad arki doonto iyaga oo gaaban iyo iyaga oo dhaadheerba laakiin hadda maanta fiidiyogan waxaan ugu talagalay inaan kaga hadlo dad badan ba waxay ka cabanayaan in hawo iyo gaas ay caloosha kaga furan tahay maaha gaaska calool ololka ah waxaan ka hadlaynaa inay caloosha mar walba codad fara badan ay sameynayso codadkaasi waxaynu u kala saari doonaa ilaa dhowr nooc oo aynu odhan doono qaar waa qaar normal ah oo si normal ah bini'aadanka ugu dhaca goormay ku dhacaan waxay ku dhacaan qofku marka uu gaajoonayo hadduu aad u gaajoonayo calooshiisa ay marantay hormoonada faraha badan ee lasoo saaraya ayaa gaas dhaliya kuwaasi ayaana sameeya qofku marka ay calooshiisu aad ka maran tahay marka qaar way samaysaa marka qaar waxay samaysaa hadduu qofku uu biyo aad iyo aad u badan u cabo oo ka badan intii normalka ahayd ee hore u cabi jiray taasina marka qaar way samaysaa laakiin halkan uma imaanayno waxyaalaha normalka ah ee marmarka dhaca aynu ka hadalno waxaynu halkan aan ku soo jeedinayaa waxa weeyaan inaynu ka hadalno waxyaalaha ummadda Soomaaliyeed taabanaya oo ay ka mid tahay waxyaalaha keeni kara inay si joogto ah qofkan ugu soo noqdaan dhibaatana ku hayaan markasta wax cuno markasta wax cababa inuu dareemo in calooshiisu buuxdo ay buuxsamaysana waxyaalaha ugu muhiimsan waxa ka mid ah horta qofku waa inuu ogaadaa inay jiraan xanuuno lala dhasho oo qofkaasi uu la'aan karo enzymes ama waxyaalo loo yaqaano burburiyaasha ka mid ah cuntada kuwaas oo samayn kara inay dhibaatadu timaado kuwaas waxaa ka mid ah inuu qofkani leeyahay dhibaato ku qababa caanaha xanuun caanaha ka mid ah oo lactose intolerance la yiraahdo ayaa jira xanuunkaasi wuxuu sababi karaa inuu qofkaasi ku sababo in calooshiisu khalkhal badan uu ku dhaco marka waxa muhiim ah in qofka horta marka koowaad uu hortiisa eego tusaale ahaan ka caanaha oo kale inay isaga tahay waxyaalo dhib ku haya oo marka uu caanaha cabo ama wax caanaha laga sameeyay ama xataa wax caanaha laga sameeyay wax laga sii sameeyay oo adigu waxaan uu la xiriira hadii ay meel un kaga jirto cuntada uu cuno xilligaasina ay tahay xilliga dhibaatada ay u timaado koob caano cabay ama yogurt ayuu cunay ama wuxuu cunay waxyaalahan kale ee laga sameeyo caanaha kadibna waxa ku bilaabantay inay calooshiisu khalkhal ku yimaado gaar ahaan inay buuxsanto ama uu dareemo in uu culayskaasi ku soo noqonayo gaar ahaan ka Allahumma salli ala Muhammad naqaska marka waxa muhiim ah horta markuu taa ogaado inuu dhakhtar u tago dabadeedna la tijaabiyo inay sheekadani sax tahay kale tijaabadana dhowr siyaabood ba lagu galaa oo qofka in waqti la siiyo chance la yiraahdo waxaan muddo 2 toddobaad ah waxaad iska ilaalinaysaa waxa caanaha ku saabsan iyo caanaha iyo wax laga sameeyo caanahaba marka qolada toddobaad hadduu qofku ka raysto dhibaatadii haysatay qofkaasi waxa weeyaan qof xanuunka qabay oo waa inuu markaas sidaasi ku wada caanaha iska ilaaliyaa waana xalka koowaad ee qofkaasi uu helayo siyaabo kale oo waxyaaluhu ka heli jiray caanaha lactose intolerance qofka qaba iyo cuntooyinka uu cunayo iyo sida uu maamulayo iyagana waxaynu ka soo sameyn doonaa video gaar ah okay taas waa qayb qofkaasi haddaba waxa suuragal ah in uu sidaasi ku bogsado sidaasina xaalkiisii alxamdulillah ku noqdo waxa jiri kara qolo kale oo iyagu waxa jirta bacteria calooshina ku dhalata oo fiidiyoyada iyagana meelaha soo dhigi doona aad ku arki doonto oo iyaguna ah wax loo yaqaan H pylori wax kala maaha waxa weeyaan waxyaalaha calool ololka qayb kamid ah bacteriada keenta kuwa ugu adag ee ugu dhibta badan weeye waxa ay samaysaa iyadu marka caloosha timaado waxay burburisaa waxyaalaha ku jira caloosha qaar kamid ah kadibna waxay dhalisaa carbon dioxide iyo ammonia wax loo yaqaano labadaasiba waxa ay deegaan iyada u sameeyaan ay ku noolaan karto laakiin se ka ugu muhiimsan in carbon dioxide kaasi uu jirku galaa caloosha ku balaadhaa dibadna gaas buu noqdaa gaastaasi hoos bay u daadegtaa caloosheena hoose ayay tagtaa gaastaasi dhalatay ayaa iyaduna waxay keentaa in qofkii uu calool dhaqdhaqaaqaysa iyo cod sameynaysa fara badan ay dhacdo
marka isku gee haddii iyadana lagaa helay H pylori calooshaadana ama lagaa daweeyey oo aad ka dawowday kadibna aad isku aragtay calaamadaha waxaa 90% halkaasi ka cad inayna kaa dhamaanin waad u baahan tahay inaad mar labaad lagaa daweeyo welibana cuntooyinka iyo waxyaalaha faa'iidada u ah lagaaga daweeyo videogan ka soo hadalay ee H pylorigan kaga hadlayo kaas ayaa isagana aad ka dhigan kartaa qaabka cuntooyinka loo cuno calal ololka gaar ahaan qofka H pyloriga qabay ee laga daweeyey cuntooyinka uu qaadanayo ama marka la daweynayo lafteedaba uu la qaadanayo si ay u xogeysato difaaciisu iyo calooshiisuba maanta intaasaynu ku koobsanaynaa labadaas waanu nidhi midna waa H pyloriga ayaa keenta midna waxaa keenaa lactose intolerance oo aynu caanaha qofka uu ku dhaliyo ruuxa caloosha oo naqas badan iyo gaas badan uu ka samaysmo insha Allah haddii uu videogani faa'iido u noqday bulshada qayb ka mid ah waxaan rajaynaynaa inaad commentiga hoosta noogu reebtaan wixii su'aalana ama communityga nagu soo weydiisaan amaba aad halkan commentiga noogu reebtaan si aanu idinka soo jawaabno qofka qaba su'aalo gaarana ama Facebook ama Instagram ka nagala soo xiriiro aad iyo aad baan mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.